السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبا wanaagsan iska waran fiicantiin asxaabta dhamaantiinba. Muxuu hayay kusoo dhawaada channelkayga Fatuma Resilience oo muxuu hayay qofkii aan garanayna magacayga waa Fatuma Nasir Ali. Mar labaad iyo mar saddexaadba kusoo dhawaada channelkayga. Aad iyo aad ayaan idin kusoo dhaweynayaa. Yahay maanta waxaan idin wadaa muxuu hayay baran doonaa qaabkee ayaa ii sheegay hooyooyinku ay naftooda u jeclaan lahaayeen sidee bay naftooda u siin lahaayeen muxubo fara badan iyo jacayl inteena badan sida ogtihiinba hooyooyinku way mashquulsan yihiin waa busy nolol maalmeedkaasaa lagu mashquulsan yahay ubadkaa la kornaya lagu mashquulsan yahay marka waxaa dhacaysa inaad naftaada ilowdid oo ii sheegay xitaa aad naftaada xaqayga aanad siin marka waxaan ka hadlaya maanta sidee bay hooyooyinku ay naftooda ay maxay helay jacayl u siin lahaayeen idinka oo ku dhex jira ubadkiina reerihiina hawlihiina shaqadiina wax kastaba marka insha Allah maanta kaasaan isla wada eegi doonaa insha Allah waa kaan wada socono waayahay 6 qodob ayaan maanta baran doonaa insha Allah marka qodobka koobaad wuxuu yahay si maxay heeday fudud naftaada run ugu sheeg ayaa lagu yiri marka naftaada qaabkeeda run ugu sheegaysaa waxaad oranaysaa maxay heeday waad daashay waana run waad daashay waad isku dayday wax badan waad qabatay yaa marka waxaad sameynaysaa oo kale markaad inta naftaada u sheegto waxaad oranaysaa badan bay qabanaysaa waxayna u baahantahay nafteedu inay break yar qaadato inta aanad maxay hawada aanad ka bixin marka waanaad naftaada run sheegtid wixii wanaagsan iyo wixii aan wanaag ahaynba ee ii sheegay aad ku dhex jirtid waanaad naftaada horta runtaad u sheegtid qodobka labaad naftaada waxaad siisaa laxdad yar oo ii sheegay ay ku nasato ay ku fadhiisato biyo yar ku cabto waxaana siin kartaa xitaa 5 minutes ba ahaataba oo iska aamustid oo maskaxdaada buuqa fara badan ay ku dhex jirta ay karana xisaabtaad ku jirtid iyo maxay heeday walwalkan ku haysta ilmahaad ka fikiraysid reerkaa ka fikiraysid biilaad xisaabinaysid marka 5 minutes naftaada sii biyo iska cab yara fadhiiso naso isdeji maxay heeday haddaad ii sheegay kaliga aad rabtid inaad isla yara fadhiisatid isla sheegaysatid waad 5 daqiiqo wax badan bay kuu qabanaysaa waad nasanaysaa haddaad ka yara dhex baxday waxaana buuqad ku dhex jirtid maalin walba haddaad siisid 5 daqiiqo naftaada يعني wax weyn bay noloshaada ka bedelaysaa oo waxaad qaadanaysaa energy-ga dib loo soo qaataa laakiin haddaad tiraahdo superman baan ahay ood ka soo bilowdid maxay heeday aad tiraahdo subaxa saan u kaco ilaa iyo caawa waa soconaya waa shaqaynaya kama wuxuu qabanaya kii kale wuxuu qabanaya halka ma ka soo shaqaynaya dibadda ka soo shaqaynaya guriga ka shaqaynaya ilmihii baan ka shaqaynaya marka adiga naftaada hawaday ka baxaysaa marka 5 daqiiqo xitaa haddaad iska goyn kartid naftaada waa inaad fadhiisatid meel bilaa buuqa cidi kula hadlayn telefoonka xataa iska dami kaliya fadhiiso dee naftaada farxad yara sii isla yara sheekayso wax akhriso haddaad doontid waxbana ha akhrinina fadhiiso una bal naftaada energy-ga soo noqdo xataa makhdad intaad yara dhigatid bal saaw yara jiifso haddaanad xataa fadhiisanayn waayo bini aadan baa tahay dee habeenii maalin socda energy baad u baahanaysaa dee waa inaad naftaada xataa 5 daqiiqo maalin walba aad siisid aad ka mid tahay in qofku naftiisa uu jeclaado ay ka mid tahay inuu energy-giisa uu dib u soo ceshado 5 daqiiqo maalin walba siiyo qodobka saddexaadna wuxuu ku leeyahay naftaada ula hadal si dabacsan ama si naxariis la ula hadal imika nafteena in badan man calaanana waxaan idhahnaa maxaad saa u samaysay dembi fara badan baad dareemaysaa mar walba aad canaanaysaa naftaada si wanaagsan oo lama hadlaysid marka maxaad ku bedelaysaa dee ilmahaaga kaba soo qadimka ilmahaaga markaad la hadlaysid ilmahaaga kuma oranaysid waxaad tahay doqon waxaad tahay muxuu bilaa faa'iido ilmahaaga ma quuraysid waxyaabaha ku tiraahdid adiga naftaadana maxaa kuu diiday inaad tiraahdid waxaad tahay qof kartile waxaad tahay qof dadaalaya waxaad tahay qof adag waxaad tahay qof ii sheeg sabir badan waxaad tahay qof fariid ah naftaadana saa ula hadal yaa marka naftaada had si fiican ula hadashid waxay ka mid tahay inaad naftaada jeclaatid hadalka fiican nasiimada inaad naftaada nasiisid oo 5 daqiiqo siisid inaad maxay mar waliba
hadallada xunxun ee naxliga leh naftaada ku oranaysid waa wax kugu soo noqonaya adiga ood ku bedelatid wax hadallo wanaagsan oo naxariis leh oo dabacsan oo qurux badan oo wanaagsan mar walba oo naftaada quudiso hadallo fiican aad ku tiraahdid oo mar kasta isheeg wacigaaga uu sii kordhayo ood isheegay noqonaysid qof noloshiisa ay hagaagsan tahay dee yaa mar kastood muraayada hor istaagtidna naftaada u sheeg inaad tahay qof isku filan qof faraxsan qof isheeg waaye arag ah qof nolosha wax ka yaqaana qof isheegay maxay heedaa caruurtiisa isheeg wax u qaban kara qof dadaalaya hadallada way wanaagsan waxay kaa caawinayaan gudahaaga wixii ku jira oo dhan ay bedelayaan hagaajinayaan maskaxdaada saa u fikiraysid hadalka kaa soo baxaya maskaxdu u gudbinaya marka maskaxdaad rabtid inay si fiican ha u fikirto ama naftaada aad jeclaatid hadal wanaagsan naftaada ku dheh oo u sheeg oo isjecloow ka afaraadna wuxuu ku leeyahay sii daa waxyaabaha aad ka dareemaysid yacni dembi inaad dareemaysid oo dhan iska sii daa ama idlowba ka tirtir noloshaada iyo naftaadaba muxuu haayay hooyooyinku badankoodu waxay la yimaadaan yacni maalintaad hooyo noqotid oo kale waxaad dareemaysaa dembi mar waliba waxaad dareemaysaa inaad ilmahaaga wax u qaban naftaadii wax u qaban wax walba aad dayacaysid canaan fara badan baad naftaada aad canaananaysaa waxaasoo dhanna looma baahna galtiga aad dareemaysid mar waliba kaama dhigayo hooyo fiican yaa laakiin haddii aad nabadda maxay hayday iyo horumarka iyo waxaasoo dhanba waxay kaa dhigayaan maxay hayday jacaylka naftaaday kordhinaysaa galtigaasina horumar male dib buu kuu celinayaa ilmahaagana waxuma qaban kartid naftaadana waxuma qaban kartid mar waliba waxaad odhan lahaa dumarow naftiina mar waliba ay dareemayso maxay hayday dembi inaad yacni ama culays horumarkaagu kaa hortaagan yahay iyo farxadaada iyo quruxdaada iyo nabadaada iyo jacaylka naftaada waxaasoo dhanba waa waxyaabaha hooyada dib u jiita ee u diida horumarka galtigaasina naftiina noloshiina kaa tirtira ka masaxa sidaad hore u socotaan qodobka shanaad wuxuu ku leeyahay u dalbaadeg guulahaaga yaryar kaba soo qaaday ka sarinta baad ka soo kacday ilmahaaga cunto maad u karisa ma siisay guriga ma iska hagaajisay naftaada self care ma siisay ma hagaajisay muxuu haay waxyaabahaasoo dhanba waxay kordhinayaan kalsoonida naftaada iyo jacaylka naftaada yacni waa inaad u dalbaadegtid mar waliba maxay heeday guulahaaga yaryar waa inaad ku dalbaadegtid oo naftaada u sheegtid inaad waxaasoo dhanba aad soo qabatay maanta alxamdulilah tirahdid ilaahay baa ii sheegay maxay heed na garansiiyey waxyaabaha aad qaban kari weydidoo kale naftaada inaad ku canaanatid maaha yadana waa inaad haddii wax qaban kari weyday hal shay uu yahay ood 5 shay soo qabato wanaagsan intaa wanaagsan diiradda saar inta kalena iska ilow waayo maalin unbaad kaa kalena qabanaysaa qodobka lixaadina wuxuu yidhi caawimaad dalbo adigoonan xishoonayn bani aadamku sidiisaba keligii intuu halkaas soo istaago macar cararadee weliba hooyaduna gaar ahaan markay u baahato ii sheegay caawimaad in la siiyo waa inaad dalbato oo tiraahdo i caawiya waan u baahanahay caawimaad ceeb ma aha inaad tirahdid caawimaad baan u baahanay i caawiya ama familigaaga ka dalbo ama walaalaha ama ka dalbo xaaskaaga ama ka dalbo asxaabtaada ama cid kasta oo leedahay way ku taageerayaan caawimaad ka weydiiso ceeb ma ahana qofku inuu caawimaad u weydiisto waxay ka mid tahay self care qofka ama self love ka mid tahay markaad aragtid inay caafimaadkaaga ii sheega ama daal fara badan aad dareemaysid qofka kuugu dhow xitaa jaarkaaga ka aad isleeda kaaba ugu naxariis badan caawimaad ka dalbo oo de kaale ee caawi iga yara qaba caruurta ama aan ii sheegay aan yara seexda in yar aan nasto nasiibaan u yara baahanahay ama dherigan karnay caruurtiibaa i hoos carcarayso waan kari waaye i caawiya dee waxyaabaha ii sheegay aad caawimaadka iyada laftirkeega waad weydiisan kartaa laakiin afrika de dadkii joogay mar waliba waa la helaa cid ku caawisa ama gabadh ku shaqaysa ayaad helaysaa ama familigaaga mar walba kula jooga laakiin halkan cidii joogta wallahi way u baahan yihiin caawimaadka cid caawisa markaasina waxa weeyaan hooyooyinka adagi baa layidhi keligood ii sheegay wax walba ma qabtaan oo keligood ii sheegay ma socdaan
bani aadanku sidiisaba u baahanaya markay doontaba ahaatee qof caawiya ama cid ag istaagta ama wax la qabata oo caawimaadkan wax laga xishoodo maaha. qofku odhan karaa ii sheegay waxaa ma garanaya ama waxaas iya igu adkaaday ama hawsha ma haysatay ila qabta wax dhinacunbad ka heli markaaste. ilaahayna waa la tala saartaa habeeniya maalin, ilaahay isku xidha, ducaysta. waa kaas waa gabagabadii. waxaan ku gabagabaynayaa markaa hooyooyinow, waxaad tihiin nolosha dhan ee bani aadamka soo saaraysa ama warshada dhan ee bani aadamka soo saaraysa. dembina ma aha yacni ama ceebna ma aha inaad naftaada jeclaatid. selfishnimana ma aha, dee qof anaaniyana ma tihid, laakiin naftaada xaq bay kugu leedahay. waxay u baahan tahay nasiimo. markii nasiimo u baahato waa in waqtiga nasiimada aad qaadatid. farxadda waa inaad farxad heshid. maxay heeday caawimad marka u baahato waa inaad caawimad heshid. adduunyada oo dhanna hooyaday kusoo bilaabmaysaa oo ina ku dhammaataa. marka waxaa laydinka rabaa inaad idinkuna naftiina jeclaatiin, si naxariis loola hadashiin, guulaha yaryarna aad u dalbaadegtiin. maxay hayd ilmahaaguna aduu ku eeganayaa. haddii aad ii sheegay naftaada aad daryeeshid, futureka carruurtan aad soo saaraysid iyaguna adagay kaa eeganayaan. wanaagaaga iyo naxariistaada naftaada saad ula dhaqmaysid aduu ku eeganaya ilmuhu. marka noqo qof wanaagsan oo u noqda role model ilmihiisa. ubadkeenuna inagayna eegtaan. waxaan ku gabagabaynayaa intaa qodobadaas 6 qodob maanta oo idinkan laydinka rabaa dumarow inaad naftiina ku dabaqdaan ood isjeclaataan, naftaada wax u qabatid, ilmahaagana markaasaad wax u qabanaysaa. waa kaas. qofkii aanan garanayno magacayga mar labaad mar saddexaad dhamaadka weyn waa Faadumo Naasir Cali. hana iloobina channelkaygana subscribe saartaan, like, share, comment. ciddii ii sheegay aad asxaab la tihiinna usii gudbiya. waa kaas. halkaas kaga baxay maanta. habeen wanaagsan. maca salaama. khayr badan baa idin rajeynaya.